بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صلوات الله وقارئ خير كجعل لماتنا أحبابي وأن السلام يا ملك السعالم كي سعتان إله سبحانه وتعالى يا مهدس كله مركل سكن سعري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله دائما وأبدا، الحمد لله، شكر لله. soo dhawaada walaalaha qaaliga ah, maanta waa maalin jimca, waa maalintii la badin jiray ku salinta xabiibka sala allahu calayhi wasalam. In badan aan ku salino nabiga salaano calayhi salaatu wasalaam. nuurka labada wiig suuratulkahfi ha hilmaamina ka faa'iidayso maalin walba oo jimca akhriso suuratulkahfi. sidoo kale saacatul ijaabaan ducada la soo celinayna ayaa ku jirta maalinta jimcada ee ilaahay raxmaanka raxiimka arrimahaaga u sheego, ilaahay subxaana watacaala kuma khasaarin doono. soo dhawaada axbaabii, waa qisaskii saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. qisada koobaad waxaa ka sheekeeyey nin beeraley ah. wuxuu yidhi beertayda mar walba way iga khasaari jirtay buu dhahay. dad culimo ah oo diinta garanaya ayaan la tashtay buu dhahay, waxayna ii sheegeen inaan badsado istikfaarta iyo saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. markastoo aan badsado istikfaarta iyo ku salinta nabiga calayhi salaatu wasalaam, waxa uu dhahay beertayda waxay heli jiray buu dhahay biyo ayay heli jirtay buu dhahay beertaydu. sidoo kale marka aan maxnihii ay dhacdo mushkilado ama abaaro ama wax dhacaana, waxaan samayn jiray buu dhahay, waxaan u carari jiray ilaahay xaggiisa oo istikfaarta iyo saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan badsan jiray. sanad walbe markii arrintaasu dhacdo oo abaaraha, wuxuu yidhaahday aan badiyo saliga nabiga istikfaarta, waxaan heli jiray khayr iyo roob ayaan ku heli jiray buu dhahay. ka faa'iidaysta saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo istikfaarta ayuu yidhaahday. qisadan walaalaha qaaliga waxaa ka sheekeeya ninkan wuxuu yidhaahday deyman baa la igu yeeshay buu dhahay. waxaan ahaa nin ganacsado weyn ah, ganacsigaygii igu burburay, deymana waa la igu yeeshay, dukaamadii waan iska xiray buu dhahay. waxaan bilaabay inaan ilaahay xaggiisa u cararo, ilaahay kaalmo weydiisto. waxaan badin jiray saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam oo fadligiisa aan bartay buu dhahay. kun salaatu ibraahimiya ayaan la imaan jiray buu dhahay. waxaan helay buu dhahay albaabo badan ilaahay iigu furay, lacago badan inaan ku helay buu dhahay. alxamdulilah, ilaahay subxaana wataala mahadda iskale. waxyaalo badan oo aanan filaynin ayaan ku helay buu dhahay, waana iska daayay ganacsigii, waan xiray buu dhahay. ninka intuusan geeriyoon ka hor wuu xanuunsaday oo wuu dhul dhacay. dadka ehelkiisa iyo dadka waxay dhihi jireen sidee lacagta tirada badnayd ee intii lokeeta la ekeyd, maadaama ganacsiga kaa burburay wax kalena aad ahayn, sidee ku bixisay? marka wuxuu dhihi jiray ilaahay subxaana watacaala albaabada khayrka wuxuu iigu furay buu dhahay, oo ummadihiisa ilaahay iigu khasbay, oo dayuuntii aan isaga bixiyey buu dhahay. saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ka faa'iidaysta, ilaahay baana fadliga iskalena siiyey saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. qisadana walaalaha qaaliga waxaa ka sheekeeya shiikhan wuxuu yidhaahday markaan safar gelayo waxaan ku bilaabi jiray safarkayga saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan ku bilaabi jiray, wax dhibaataana ma la kulmi jirin buu dhahay. waxaa dhacday buu dhahay inaan safar dheer gelayay waqti, marka mashquulkii kumaana bilaabin saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam, waan ilaaway buu dhahaa. waxaa dhacday in gaarigii jidka nooga jabay, dhibaato badan ay nagu dhacday. kadib waan soo laabtay oo dib baan usoo laabtay oo magaaladii aan ka tegay baan kusoo laabtay. waxaan safarkaygii ku bilaabay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam, wuxuuna iigu dhammaystirmay si caafimaad iyo nabad ah iyo baraaro abuu igu dhammaystirmay buu dhahay safarkaygii. wax macnihii dhibaato ah kalamaana kulmin. waxaan dadka kula talin lahaa markaad wax bilaabaysaanba saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ku bilaaba. haddaad safraysaan, haddaad waxbarasho bilaabays, wax walbe, haddaad ducadii bilaabays, wax walbe ku bilow saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu yidhaahday sheikhaas. qisadana waxaa ka sheekeeyay nin muslim ah. ninka wuxuu yidhahday waxaan wadaa buu dhahay baabuurta ubarka ah ee tagaasida ayaan ka shaqeeyaa buu dhahay. wuxuu yidhaahday youtube-ka ayaan waxaa ka dhageystay fadliga saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. mararka qaar wuxuu yidhaahday ubarka aan ka shaqeeyo waxay ugu dhici jirtay buu dhahay inaan saacado badan, 2 saacadood 3 saacadood ay ugu qaato aanan helin qof aan qaado. wuxuu yidhaahday markii aan bartay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam fadligiisa, wuxuu yidhi saa dalabka qofkii soo dalbada markaa usii dhigaba, saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa horey ka sii wadaa, dalab cusub baan helaa. maba wuxuu yidhaahday maasha allah maba waaye macaamiil, sababtuna waxa weeye ku salinta nabiga calayhi salaatu wasalaam. markaad meel fariisato oo sugaysa macmiil, ha iska aamusine
كسل النبي عليه الصلاة والسلام أيو يراهدي كفايدة ولالها قارقة qisadan ayadana waxaa ka sheekaysa hooyo Kenyaan ah oo muslim ah wadanka Kenya oo dhalatay Facebook live ayadoo ku jirta hooyada ayay waxay sheegtay inay maxay sheegay xaalad adag hadda ka hor ay soo food saareen ee gurigoodii iyo rugtoodii ay ka qaxeen sababo dhaqaale dartii inay uga guureen waxay tira hooyadu waxay bilowday inay caruurteeda iyo ayada iyo sawjkeeda isla fadhiistaan oo saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam akhriyaan subaxii waxay akhrin jireen boqol salaati ibraahimiya galabkiina waxay akhrin jireen boqol waxay tiri hooyada waxa noo furmay albaabo badan oo aanan filayn guri cusub ayaan helnay gargaar dad asxaab iyo ehel baa noo soo gurmaday alxamdulilah maanta nolol qurux badan baa ku noolnahay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu furaabay tiraahday albaabada khayrka ayuu furaabay tiraahday hooyada iyada ayaa soo gasha leybka oo ka sheegtay qisadana walaalaha qaariga waxaa ka sheekeeyay nin macalin dugsi hoose dhexe iskuul dhiga oo u dhashay wadanka Pakistan wuxuu yiraahday ilmaha markay fasalka soo galaan ilmaha markay yaryar yihiin waa aragtay walaalaha qaaliga ah ilmaha yaryarka waxay markay fasalka soo galaan waxyaalaha akhlaaq xumo ah casharkii ma soo fiirinaya feejignaan la'aan ayaan ku arkay waxaan bilaabay buu dhahay inaan subaxii intaan soo gelin shaqada inaan 100 jeer saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam akhriyo biniya ardada inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala sugo oo feejignaantii iyo fahamkii iyo akhlaaqdiiba ay helaan marka wuxuu yiraahday arrinkaasi 3 bilood markaan waday oo u ducaynay ilaahay ardadayda iyo galaaska anigu hayo iyo galaasyada waxaan u dhigaba ilaahay edabtooda hagaaji ilaahay xaqa ku sug waa u ducayn jiray buu dhahay waxaan arkay buu dhahay ardadii oo isbedeshay waxay noqdeen kuwa feejigan kuwa ixtiraam badan kuwa maasha natiijooyin fiican keenay aniga ixtiraama macni maasha Allah tabaaraka raxmaan marka wuxuu yiraahday saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ha fududaysanina xataa qalbiyada caruurta ayuu furfurayaa bedelayaa ee adigu akhri ficilkii waxa laga rabaa qofka weyn ee fahansan ee fadligiisa garanaya inuu la yimaado biniya meeshuu rabana wuu u niyeysan karaa fahanteen walaalaha qaaliga qisadana waxaa ka sheekeeyay nin u dhashay wadanka Norway wuxuu ahaa nin muslim ah wuxuu yiraahday waxaan ku lahaa online-ka ayaan waxaan ku lahaa dukaan Amazon ayaa dukaan ku lahaa buu yiraahday online-ka group Telegram ana uu leeyahay waxaan wuxuu yiraahday ku dadaali jiray si aan macaamiil u helo social media meel kasta dhex ordi jiray si aan macaamiil u helo balse wuxuu yiraahday markaan subax kasta 300 oo jeer oo saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam aan la imid ilaahayna weydiistay irsaaqad waasaca waxaan helay buu dhahay wax la yaab igu noqday hal bil kadib xisaabteedii Amazon kor bay u kacday buu dhahay dalabaadyo joogta ah baan helay waxaan helay macaamiil cusub waxaan helay faa'iido badan wuxuu yiraahday 4 sano markaan ku jiray marketingkana wuxuu yiraahday maasha Allah tabaaraka raxmaan lacagta aan ka helay lama qiyaasi karo uu dhahay hal sano oo saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam subax kasta aan akhrinayo 300 oo jeer noloshaydi si isku bedeshay ma qiyaasi kartid buu dhahay haddaan dabcan inaan ku warramo waa ku wareeraysaa laakiin barako iyo risiq ilaahay xaggiisa ka ahaaday weeye ee ka faa'iidaysto dhahay maasha Allah qisadan axbaabi gabar baa ka sheekaysay gabadhan waxay tiraahday 2 sano ayaa shaqo la'aan igu dhacday bay tiraahday YouTube-ka ayaa waxaan ku arkay sheekh ka sheekeynaya fadliga saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam oo qof walba wuxuu rabo biniya uu ku helayo hadduu ilaahay ugu tago waxay tiraahday waxaan bilaabay inaan anigana albaabada khayrka walaalaha ay ku furteen qisaskii iyo waxa aan soo dhageystay iyo fadligii ayaan bilaabay bay tiraahday waxaan ku bilaabay bay tiri saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam 40 maalmood oo isku xigta horta kun saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam salaati ibraahimi inaan sameeyo go'aan ku qaatay waxaana la imid bay tiraahday maalin kasta waxa la imaan jira kun salaati ibraahimi 40 maalmood kadib 40kii maalmood markaa soo dhamaystay waxay tiri shirkad weyn oo horay iigu diiday shaqo inta ka codsaday aan ka waayay ayaa waxay tiri ay soo dalbatay shaqo fiican oo waxay tiraahday heshiis wanaagsan leh oo waqti dheer soconaysa oo waxay tiraahday lacag igu filan aan ka helay ayaa waxay tiraahday ayaan galay bay tiraahday shirkadii baan ka shaqeyn jiray mushaar fiican baa ka qaatay maasha Allah saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam waa furaha mashaakilaadka nolosha ee ka faa'iideysta ayay tiraahday qisadana waxaa ka sheekeeyay qoys muslim ah ayaa ka sheekeeyay walaalaha qaaliga waxay dhaheen ganacsi yar ah oo cabitaan ka sameeyay ayaan lahayn bay dhaheen
oo cabitaanka ayaa mashiinada ku shiidi jirnay kadibna waa sii gadi jirnay waxaan ugu dhacay bay dhaheen inaa macaamiishayda hoos u dhacday macaamiil la-aan daymo in lala ku yeeshay ina korontadii iska bixin weyno hooyada qoyska oo ka sheekaysay qisadan waxay tiraahday caruurtayda iyo aniga ayaan waxaan u fariisan jirnay maalin kasta marka dhibaatada nagu dhacday dhaqaale la-aanta korontadiina ay iska bixin weyn korontadiina lacag badan ay nagu keentay inaa maalin kasta aan la imaano saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam si joogto ah 500 baan la imaan jirnay bay tiraahday qoyskayaga oo dhan intaa isku imaano ayaa qof walba 500 qof walba 500 buu samayn jiray bay tiri waxay tiraahday waxaa dhacday bay tiri ilaahi subxaana watacaala inuu faraj noo furay shirkad weyn ayaa naga soo dalbatay bay tiraahday cabitaanadeeda inaan samayno oo ayada intay wax waqtiga u dheereynaya intay ku darsato inay sii iibisay tiraahday halkaas fursadaasaan helnay kadibna waxaa naga yaraaday bay tiraahday mashiinadii maalin kasta isticmaalayna korontadii tirada badnayd waxaan ka helnay dhaqaale fiican nolosheedii way bedelmatay alxamdulilah saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa la moogaan bay tiri hooyadaani maasha allah ka faa'iidaysta walaalaha qaaliga qisadaana waxaa ka sheekaysay ardayad waxay dhigan jiray bay tiri engineerinka waxay tiraahday imtixaankii engineerinka 2 jeer baan ku dhacay bay tiraahday waxaa ila soo xiriiray bay tiri aabahay markaa u sheegay aaba 2 jeer baan dhacay wax iga qaldan ma garanayo stress baan ka qaaday waa dadaala wax iga qaldan ma garanayo aabahay wuxuu igu yiri bay tiraahday aabe saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam akhriso dadaal waxa laga yaabaa inaa xanuun ama wax ku hayaan ama dhibaato kale kugu dhacday insha allah dadaal buu igu dhahay waxaan gabadha waxay tiraahday waxaan bilaabay inaan saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam akhristo weliba waxay tiri saa'id umaana badin jiray bay tiri siiqada gaabanna 100 baan ka akhrin jiray siiqada dheerna 100 baan ka akhrin jiray bay tiri waxaana go'aansaday markaan subaxii guriga ka baxayo akhrin jiray midna markaan iskuulka gudihiisa aan tago baan akhrin jiray imtixaanaadka markaan gelayana waan akhrisan jiray bay tiri sanad kadib waxay tiraahday waxaan keenay natiijo fiican waxaana ku guuleystay imtixaanadii saaxiibaday waa ila yaabeen bay tiraahday waxay tiraahday qof walba dadaalkiisa iyo meesha uu maasha allah tabaaraka raxmaan saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam dhigo buu yaalaa والله waxaa soo saabay nolosheedii siday ahayd iyo maanta siday tahay farqi weyn baa u dhaxeeya saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ka faa'iidaystay tiri gabadhaani ka faa'iidaysta walaalaha qaaliga khayr farxad baan rajeynaya qisaska idin soo diyaariyay intaas ay ku eg yihiin ka faa'iidaysi wacan waa ujeeda walaalaha sida ilaahay noloshooda u bedelay adigana saas oo kale ilaahay subxaana watacaala kugu bedeli karaa waxaa la isdheeryahay waxaa weeye wardiga joogtada ah iyo maasha allah dadaal inaa waqti gashatid waqti la gashto iyo badinta saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska ubay bin kacb waxaa ku cad macnihii saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu in la badiyo walaalaha qaaliga ah waayo waa aragteen waxaa dhahay qisada ubay markii hore wuxuu ahaa ducada ayuu badsan jiray wuxuu dhahaa booskii ducada haddaan saligaaga geliyo rasuulka ilaahay oo ka waran marka haddaan intaa ka dhigo haddaan waqtigayga 4 meelood meel ka dhigo haddaan waqtigayga 2 meelood meel ka dhigo haddaan 3 meelood meel ka dhigo كل نبي عليه الصلاة والسلام وحده خير بوكويا خير بوكويا خير بوكويا هاي كذب وحده دان وقت جيجو أو دن كديجا سلق النبي عليه الصلاة والسلام كور وقت جدو عدا انقشن ترى دن حدان سلق النبي عليه الصلاة والسلام قشتك ورن محكونا إذن تكفى همك ويغفر ذنبك والغرافة هم ممتلئ كاود القاضية marka ma sha Allah tabaarak raxma halkaas inuu waqti badan ku jiro ayaa dareemayna walaalaha qaaliga marka ka faa'iideysi wacan saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam badi siiqada gaaban siiqada dheer isku dar farajku imaanaya waridina ka yeelo biniya inaad ilaahay amarkiisa qaadayso ilaahay baana dhahay ku saliya nabiga calayhi salaatu biniya inaad macnihi nabiga calayhi salaatu wasalaam maxay ku salinayso u ducaynaysid biniya maxay ilaahay raali ahaanshihiisa u niyeyso ilaahay subxaanahu wa ta'aala arimahaagana u niyeyso ku darso إلهي سبحانه وتعالى كوكما خسارين دولة مجددا ولا لها قارقة مركا كفايدة خير فرحات بين رجينيا إلهي سبحانه وتعالى خير كهنا وافتيو إلهي بان سلسية إسكال لها نسلسيو وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته